Assalaamu calaykum waa janalkiini Ekisom ku soo dhawaada taxanaha la magac baxay habdhiska taranka aadanaha fadlan haddaad nagu subtaa subscribe gambalelka furo uureysiga iyo madhaleysnimada la socod wanaagsan taxanahan mar walba qayb ayaan soo qaadan doonaa macluumaad guud mowduuca uureysiga iyo madhaleysnimada waa mowduuc aanu isleenahay aad iyo aad buu ahmiyad ugu leeyahay cid kasta oo Soomaali ah oo doonayso inay guri degto ubadna daadihiso maxaa yeelay waxa ku jira macluumaad hadduu qofku fahmo uu kaga maarmi karo dhakhtar raadin iyo dhibaatooyin dhaqaale oo daba jiitamaya kol hadday umadu isaga badan tahay taagooleyn aan xitaa bixin karin qarashka wiisitada intaana daawo balasla gaarin haddaba annaga oo mowduuca dib kaga qoosi doono bal marka hore aan ku bilowno mowduuca guud ee ku saabsan jinsiga hawadu ama minadu waa walaha duuf ah oo uu ninku ku tuuro ilmagaleenka haaskiisa kolka uu gaaro heer biyo bah hawada kolka ay soo baxayso waxay leedahay midab jaalle higeen ah oo u eg asaanka ukunta ha yeeshee waxay dareere dhigdhigaas u beddeshaa kolka ay hawadu ku dhacdo waxa kaloo ay leedahay ur gaar ah oo uu sababo dhacanka borostatku hawada waxay si joogta uga samaysantaa labada xaniyood laga bilaabo hilka qaangaarnimada 13 ilaa 15 jirka waxayna ka samaysan tahay madaxa ay ku jiraan hiddo-sideyaal iyo dib u fududeeya inay dhaqdhaqaaqdo hawada waxay ku noolaan kartaa gudaha habdhiska taranka naagta muddo 4 maalmood ah halkii tuurmo oo hawo ahi waxay u dhigantaa 3 ilaa 6 sentimitir oo 3 jibaaran ama 220 ilaa 300 milyan oo unug jinsiyad ah hawada intaanay ka bixin jirka waxay soo martaa masaafo aad u fog oo ku dhow 2 mitir oo dheerar ah kolka istiinka uu gaaro heerka ugu sareeya geedka ninku waxa uu tuuraa 5 ilaa 8 tuurmo oo hawo ah isaga oo sidaasi kaga taqluusaya waxa kasta oo ku jira